السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولالايغا سوماليات دمانبا كومبانيغيغا iyo walaalaha ka shaqeeyaba aad baan u salaamaya magacaygu waa Cusmaan kana mid ah managerska Soomaaliyeed ee kumbaniga weyn ee caalamiga ah ee Forever Living maanta waxaan jeclaystay inaan waxoogaa yar idinla wadaago taariikhdayda oo kooban iyo sidii aan ganacsigani ku bilaabay walow aan in badan idinka warramay walaalayaal ganacsiga waxaan bilaabay 2019 bishii labaad sababta ugu weyn ee aan ganacsigani u bilaabay waxay ahayd in aan dhaqaale dheeriya aan ka helo oo aan tijaabiyo run ahaantii maan ahayn qof leh khibrado hore oo ganacsi ama qof hore wax u soo iibin jiray ama qof kumbaniyo hore ka soo mid ahaa laakiin waxay dhiirigeliyay maadaama uu yahay kumbanigani kumbani caalami ah oo meelo badan uu qofku uga shaqaysan karo ama se uu uga faa'iideysan karo in aniguna aan ka faa'iideysan karo oo ay macquul tahay maalintii aan ganacsigani bilaabayay waxaan ku bilaabay tijaabo laakiin maalinna imay xumeyn muddadii aan ganacsigan waday imay xumeyn markaan leeyahay waxaan ka wadaa maalinna kumbaniga niyadeyda hoos umay dhicin maalin walba waxaan ahaa qof ku niyadsan oo mustaqbal dheer kumbaniga ka arkaya intii hore kumbaniga waxa aan ka sameynayay dhaqaale dheeriya laakiin bishii labaad ilaa bishii tobnaad 2019 intii u dhaxaysay waxa uu ganacsigaygu sameeyay koritaan fiican kaas oo sahlay in aan shaqadeydii caadiga ahayd ee 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo inta u dhaxaysa ka shaqeynayay aan ka tagay sidee ayaan iskugu waday shaqadan ama ganacsigan iyo shaqadeydii kale ee caadiga ahayd ganacsigani waxaan ka shaqeyn jiray waqtiyada aan firaaqada leeyahay gaar ahaan xilliyada break time-ka ee ay dadku break qaadanayaan anigu waxaan ahaa mid waqtiga ugu badan gelinayay inuu ganacsigani ka shaqeeyo maadaama shaqadan ama ganacsigani uu yahay mid aad ku qaban karto sida aad doonayso qaabka aad doonayso aad uga shaqaysan karto ganacsigani walaalayaal muddo waxa uu ku shaqeynayay nidaam yar oo party time laakiin muddo kadib waxa aan arkay in haddii waqtigayga aan u badiyo aan intan aan gaadhay in ka badan aan gaadhi karo kumbanigan waxa uu leeyahay 4 darajo oo laga gaadho darajada koobaad waa ta ugu horeysa ee membershipka lagu noqdo darajada labaadna waa ta marka aad dadaasho aad gaadhi karto aniga bishii labaad ayaan ganacsigan bilaabay bishii afraadna darajada koobaad ayaan buuxiyay ee loo yaqaano supervisorka kadibna waxa ii suurta galay markii aan shaqadeydii ka imiday caadiga ahayd bishii October 2019 anigoo ah supervisor ayaa shaqadeydii kasoo lug baxay oo aan businesskan gaar u noqday kadibna bishii 11aad darajadii saddexaad ayaan dhammaystiray iyadoo alaabtu ii noqotay 43% sidoo kale waxa aan helay dhaqaale intii hore aad iyo aad uga badan sidoo kale waxaan u gudbay bishii December darajada qiimaha badan leh ee aadka loogu taamo ee loo yaqaano managerka haddaba 2 bilood gudaheed ayaa waxa aan ku gaadhay kumbaniga inaan yacni darajooyinkii ugu muhiimsanaayo dhan aan kusoo gabagabeeyo haddaba halkaa waxaad ka garanaysaa ganacsigan intii aad gashato inaad ka helayso waayo intii hore waxaan uga shaqeyn jiray qaab party time laakiin maalintii aan ganacsigan aan u kordhiyay waqtigayga aan u siyaadiyay ayaa ganacsigaygu wuxuu sameeyay isbedel aad iyo aad u ballaaran walaalayaal marka uu qofku darajada qiimaha leh ee managerka uu soo gaadho waxa u xigaa waxa weeye sidii uu ku gaari lahaa dalxiisyada kumbaniga iyo weliba gawaarida kumbaniga iyo weliba inuu kumbaniga share ku yeesho 2020 ayaa ii bilaabmay bishii saddexaad gaadhigii koobaad ayaan helay
dhaqaale ahaan waa $400 oo 3 sannadood ku soconaya. bishii shanaad waxaan ku guulaystay sidoo kale gaadhigay labaad, dhaqaale ahaan waa $600 oo ku soconaya muddo 36 bilooda ama 3 sannadood. sidoo kale senior manager ayaan company ka gaadhay. dalxiiskii company-ga ee ugu horreeyay loo yaqaan eagle manager-kii ayaa bisha isaguna ii suurto galay. runtii mustaqbalku aad ayuu u iftiimay. nuur badan ayaa ii muuqda. waxaanan hore u heli jirin baan helayaa. hadday tahay dhaqaale ahaan, hadday tahay shakhsi ahaan inaan koro, isbeddel weyn ayaan arkayaa. dadaalkaygii waan sii laba jibaaray. sanadkii intaanu dhammaana waxaa ii suurto galay in aan noqdo qofka labaad ee Soomaali ahaan darajo ahaan ugu sarreeya. waa darajo loo yaqaano soaring manager. xilligaas wixii ka horreeyay waxaan deganaa Faransiiska. intaa wixii ka dambeeyay waxaan usoo guuray waddanka Canada oo qoyskaygu ay ku sugnaayeen. Canada markii aan imiday waxa aan fursadda sidoo kale runtii igala faa'iidaysatay xaaskayga oo maantana ka mid ah Soomaalida North America dadka ganacsi ahaan ugu ballaadhan, iyadoo soaring manager waqti xaadirkan company-ga kaga jirta. halkaa waxaad ka arkaysaa marka aad tihiin qoys danta guud isku taageeraya inaad ganacsigan wax badan aad ka wada qaban kartaan ood ka wada faa'iidaysan kartaan. haddaba walaalayaal, ganacsigan intii aan xaggan usoo guuray waxba iskama bedelin, wax ku kordha mooyaane. haddii aan soo haajiri lahaa anigoo ganacsi kale ama shaqo kale gacanta ku haya, waxaa hubaala in mataqaanaayey shaqadaa kale ay meesha ka bixi lahayd, waayo waan soo safray. laakiin ganacsigan markii aan kusoo ganacsigani wax ku siyaada mooyaane waxba kama dhicin. alxamdulilah, maanta waxaan ahay qofka labaad ee Soomaali oo dhan darajo ahaan ugu ballaadhan iyo ganacsi ahaanba. ganacsigayguna wuxuu ka shaqeeyaa wadano fara badan. waxyaabaha ugu waaweyn ee saaciideeya waxaa ka mid ah waa social mediaha oo inta badan lacag inaga isticmaala. aniga maanta noloshayda waan ku bedelay. Canada oo aan deganahay ganacsigan awgii waxaan ka ahay qof maanta degan hanti uu leeyahay. alxamdulilah, ilaahay baan uga mahad celinayaa. sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa walaalaha aanu safarkaa dheer soo wada galnay. qaybo badan oo tiimkayga ka mid ah waxa ay sameeyaan bishii dhaqaale aad u badan oo kumayaal dollar ah. waxaanay u badan yihiin hablo, walow ay jiraan wiilal badan oo Soomaaliyeed iyagana oo dalkii iyo dibaddaba jooga. haddaba walaalo, aan kuu soo ururiyo ganacsiga Forever Living waa ganacsi dad badan oo Soomaaliyeed noloshooda wax weyn ka bedelay. adigana noloshaada bedeli kara ee ka faa'iidayso, hana dayicin waqtiga. ganacsigan markaad kusoo biirto waxa aad baran doontaa ma aha keliya sida ganacsi loo dhiso, laakiin waxaad noqon doontaa sida loo noqdo waxaad baran doontaa sida loo noqdo qofka ugu wanaagsan ee aad doonayso in aad noqoto. haddaba walaalo, ganacsiga Forever Living waa ganacsi la hubo oo la tijaabiyey oo shaqaynaya 46 sano. aniga 6 sano ayaa shaqaynaya. shalay oo kale ila tahay, waayo waxaan ka shaqaynayaa waa waxaan aad iyo aad u jeclahay oo naftaydu u ah passion. passionka waxaa la yidhaahdaa qofku waxa aanu dareemin inuu ma garanaysayay qabanayo iyo in kale. muddada aan ganacsigan ka shaqaynayay runtii ma dareemin hal maalina inaan shaqo dhib badan aan ka shaqeeyo. walaalo, taladaan ku siinaya waxa weeye ma jirto fursad la mid ah oo aad heli doonto qiyaastayda. haddaba ha noqon qof fursadda uu helay dayaca, laakiin ka faa'iidayso. waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo ganacsigan haddii aad dadaasho waad ka gaadhi guule waaweyn. laakiin haddii aad noqoto qof soo gala iskana dhex jira, taas guul weyn kuma gaadhsiinayso. aad baan kuu soo dhaweynayaa. insha allah waxaan rajeynayaa adigana inaad taariikhdaada nooga soo warrami doonto oo isbeddelo waaweyn iyo guulo waaweyn ood gaadhayna aan goobjoog iyo markhaati ka noqon doono. aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinayaa daawashada iyo waqtigaad siisay
kiliibka yar wada socosho wanaagsan iyo wada shaqayn wanaagsan mahadsanid